qarnigaanan hadda joogno qaarad walba waa tagtaa khuraafaad baa dhex yaala qabyaalada maquursi khiyaana ku hortaalla maxay qisataa adduunka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن مركله وولالكين شرماكي أبو كرامين برنامج كانوا محي قصتها للدونك برنامج كمحي قصتها للدونك وحن إذا كوجسوا قد بنا قصوين كدني ذيالك وجعلك كوا فرحتك كوا مروجك كوا خيانة إياه وحولي أو قصة أو آنس لأن هي داود يا شو حسين يان ما أنت برنامج كوا حمرتي يقوى صاحبك عبد الحميد محمد عثمان adinku Karazai ayaad u taqaanaa. Cabdixamiid Karazai waa farsamo yaqaan aad u yaqaana dhanka kaamirooyinka, video editingka iyo habka looga shaqeeyo TV-yada. Wuxuuna ka mid ahaa farsamo yaqaanada lafdhabarka u ahaa telefishinka caalamiga ah Universal iyo telefishinka kale. Cabdixamiid marka hore ku soo dhawo barnaamijkayga maxay qisataa adduunka. waan ku dhawaashay Sharmaarka Ukraamiin aad iyo aad waayahay barnaamijka inta uu socdo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii ilaahay yiraahdo taariikhda Cabdixamiid Karazai oo kooban iyo sidoo kale Cabdixamiid 12 bishii saddexaad ee sanadkii 2017 isagoo oo jooga Muqdisho ayaa qarax baabuurka loogu xiray. waad arkaysaan haddaba videoga iyo sawirada. waxaan rabaa inaan barnaamijkan ku ogaano yaa ka dambeeya qaraxa dadkii ma lahaaya ma la sii daayay xaggee ku dambeeyaan Cabdixamiid hadeertaan ma ku raad joogaa ma cafiyey barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa waxaan idinka rajaynayaa inaad nala sii socotaan. Cabdixamiid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa kuma horta Cabdixamiid Karazai intuu ku dhashay intuu wax ku soo bartay intuu ku soo barbaaray bal soo dhawow. waan ku dhawaashay Sharmaarka Ukraamiin mar labaad aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamarweyne waxaan wax ku soo bartay isla Muqdisho markaan nolosheedii dhan wuxuu ku koobneeday Muqdisho. waayahay Cabdixamiid waxaa tahay qof caan ah oo ay inta badan yaqaanaan wariyayaasha Soomaaliyeed iyo sidoo kale fanaaniinta waliba waxaa tahay qof xirfadiisa duubista iyo farsamaynta videoyada aad ay dadka inta badan ugu qancaan. horta adiga xirfadan xagee ka soo gashay? wallahi xirfadan wax waaye qof walba meel uu ka soo galaa laakiin aniga waa markaa aniga iskuulkan dhigi jiray oo kale markaas waxaan ku dayay jiray dadka ma aragtay qaraabadaya ah sida dadka markaa oo aroosyada duubi jiray Xamarweyne oo aad loogu yaqaano sida Maxamed Cabdalla oo kale oo hadda dadka u yaqaanaan Ruushka Axmed Calimay oo kale abooyega ah dad badan oo duubi jiray riwaayadaha markaas Muqdisho xilligii burburka kadib oo shaleemooyinka la maaragtay la dhiji jiray sida dadka duubi jiray waxaa ka mid ahaa Govind oo kale Jekni Saytaanoole marka dadkaasaan ku dayi jiray oo marka aan jeclaa anigana mar inaan noqdo cameraman oo soo duubo riwaayadaha iyo maaragtay duuba sameeyo. waayahay Cabdixamiid haddii aan ku weydiiyo waxaa ku dhalatay Muqdisho gaar ahaan degmada Xamarweyne wadanka waxaa ka jira cabsi badan oo dadka caanka ah waa la dili jiray waa la beegsan jiray waa la raadsan jiray waa loo hanjabi jiray sidee adiga ugu dhiiratay adoo intaas og oo dhibaato ah haddana wiil yar ah in aad xirfadan ku shaqayso familkaagana sidee kaaga ogolaadeen oo aa uga dhaadhicisay sideena ku arkayeen? marka hore waxaan ku soo biiray aniga inaan maaragtay duubo xilli ay ahayd sanadkii 2000 iyo maaragtay 8 laakiin ka hor waxaan haystay kaamirad oo maaragtay xaafadda Itaaliya ee dideeda maaragtay soo dhiibtay oo ah kuwa markaas xilligaa la isticmaali jiray oo dadkaan ku sheegay xilligaa isticmaali jireen waxaa jirtay xilligaas kombiyuutarka xataa maaragtay in oo waxaan hadda la idadgareynayo oo la sameynayo in markaas ay adkeed in la sameeyo aad hees duubto waa waxay ahayd xilli adag oo kaamiradaas lagu duubi jiray heesta ayadoon codkana
halkaas lagu shubaayo marka hore record maaragtay laga daarayo codka cajalada marka lagu shubo kaamirada kadib sidii record haddana lagu sii xiro oo codka loo baahiyo oo qofku u maqlo way adkaan jirtay inkasta oo garab liigu soo siiyey in waxaasoo dhan aan fahmo oon kaamiradaas kusoo shaqeeyey waxaan duubi jiray aroosyada marka hore kadib 2010 ilaa 11 dhexdeedana maleynaa in markaas aan kusoo biiray in aan film u duubo muxuu ahaa TV markaas wariye dul yar agaasimka ahaa oo barnaamij loo tartan aqooneedka aan ka duubi jiray sidaasaan xilligaasaan kusoo biiray oo markaas hataa igu soo dhiirigeliyay goofintii aan maaragtay aan barnaamijkan soo wada duubno kadib sidii aan shaqadaas maaragtay wuu soo biiray anigoo markaa xilligaan sii watay howlahayga kale oo aniga gaarka ahaa waayahay familkaaga sidee kuu arkayeen sidee uga dhaadhicisay inaa warbaahin ku biirto xilligaas aad bay u adkeed wallaahi marka hore warbaahinta dadka maaragtay dadka reer xamarta xamar weyne joogo aad uguma xirno oo waxaa dhacayo waxaas maba ka warhayaan hadday degmada ugu dhow maaragtay ugu dhow ay wax ka dhacaan dad aan waxba ka ogeyn ilaa iyo xaafadahooda oo kale Virom iyo kawaanka meelahaas waxay ka dhacaan ay ogaan karaan waa dad aan ku xirneen idaacadaha marka xilligaasna waxay ahayd TV-ga oo muuqaal baahiyay Royal aabbeega u sheegay inkastoo markaas uu iga digay inaan goobaha dhibaatada ka jirto aan aadin marka shaqada markaas sidaas oo ay jirto xataa waan u sheegay dulyar in oo meelahaas oo kale inaan aniga aadi karin way dhacday 2012 waxaan xasuustaa xilli aan markaas ahaa cameraman markaas ka tirsan Royal in oo guurkeygana ay soo dhaweyd in barnaamij oo loo aadayay ilaa naxariista dhiga badan oo warshada hilibka ciidamada ay qabsadeen oo barnaamijkaas aan lii waday cameraman oo aan badnayn wariye badan aan ahayn oo aad nafteeda halis u gashay oo go'aan aan ka qaatay in aan mar dambe newska banaanka loo doonayo inaan ka shaqeyn filim noocaas inaan damay waayahay waxaan rabaa inaan ka gudbo taas aan u gudbo intii aad shaqaynaysay waa xasuustay magaalada muqdisho dadka caanka ah waa la soo wici jiray waa loo hanjabi jiray adiga iiga waran weli ma lagu soo wacay ma lagu hanjabi jiray sidoo xaalka ahaa xilliga aan ku sheegayo ahayd markaan fanaaniin asxaab la ahaan jiray oo waxaa markaas samayn jiray dadka maaragtay markaas xilli waxaa jirta taleefanada aan YouTube heesaa lagala soo degi jirin oo heesaa lagu shubo marka heeso waxaa jirtay fanaaniinta kale markay ii keenaan in heesihii aan MP3 ka dhigo mobilada memoryga dadka aan ugu shubo CD-da marka heesaa waxaan ku dul qori jiray heestaan sameeyo kale waan MP3 ka dhigo in oo numberkayga aan ku dul qoro marka 2011 mar waxaa dhacday in wiil isoo baco كله وحو أها ما أقان لكن ويهنجب ودحي منكر إيو وحاسد كجرتا مركا وكل حساب من دونا مركا أنا جنا حلقة إسك دتك نبرة مقعيدة عن كوكرنين أو ميل لا تحراعي سنجرين ما سن تحراعي وكذا جست كلي وحو الشيء سيدو درين كأجن نقدر مركز والله درين كرتا خوف مركا كله مرتدى tahay iyo munkuraad ku jirtaa kulul badan xataa waxaa jirta aroosyo qaar markaa aado kale oo dhalinyar oo maleysid argagixiso oo markaad arooska sii galayso ku dhahayo wariyaha munkuraa ku jirtiin oo arooska adigoo dhan walwal ku duubay sida xaafadaha fogfog kale marka la aado oo dadka xataa heshiiska oo aan dhijir amnigeena iyo yaa sugaya marka ودمانة كو هذا شيء. ويا waxaan aadayaa dhankii marka qarax loola beegsaday intaan su'aalaha qaraxa u guda galin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inta uusan kugu dhicin qaraxa ka hor imise meel oo ay halis ka jirto ama halis ay ka dhacday sidoo qarax oo kale uu ka dhacay aad goobjoog u ahayd aad joogtay
wallaahi markay horta qaraxay ugu naxtinka badnaa oo waxay ahayd meel aan aniga joogo hotel oo lasoo weerarayo. waxay ahayd 2012kii cabduli gaas mar uu ra-iisul wasaare ahaa waxaa noola sheegay in Aleborg oo wafdi uu maaragtay soo degaya aan halkaas warka soo qaadayno marka waxaan maaragtay ay ku leexatay gabaaridii waxay ku leexdeen shir markaas oo xilligaas xasan sheekh maxamuud la doortay oo hotel jazeera ka socday halkaas markaan kornay hotelkii aan kornay dabaqa ku dambeysa lagu qabanayay kadib anigoo markaa wararka iska duuweyn oo aad wariye ajaanib yaal joogaan tvda kale oo meeshii aad umalaysa xataa meel clip aad ka qabata aad waynaysid oo cariiri ay tahay mar hore waxaa dhacday qarax oo dabaqa dhan looxday marka aan dadkii oo dhan hal mar aan wada waayay waxaan kulligeen wada hoos galnay miiska hoostiisa kadib waxay aad maalintii igu qosolka badnaa dad igu dhaxtinka badnaa xataa istaagi waa mar labaad xataa wax filik waa duuwaa kaamarada riguudinayskayd inta maaragtay oo wixii qarax dhacaya oo dadka hoosta wada galaayo waxaasoo dhan kaamarada ma aan joojinin kaamarada taaganaan aniga ka gambaday kadib qarax labaadaa dhacda haddana ninaaba soo galay oo albaabka isku soo qarxiyey gudaha soo galay aan dabaqa kasii duuweynay markaasay ahayd haddana mar aan goobjoog u ahaa iyo markaasay ahayd mar hooyooyinka jeclaystay inaan aado haddana isdhahay xilli dambe waa iska daa markaan xaafadii aada lasoo baxay lagu dhahay hooyooyinka qarax ka dhacay waa meel oo aada loo fadhiisan jiray wariyaashu u fadhiisan jireen hooyooyinka maqaayada village waayahay waxaan rabaa inaan su-aashan ku weydiiyo waana su-aal qaraxa quseyso weli qaraxii adi lagula beegsaday maalinta uu qaraxa kugu dhacayay subaxii hore weliba gaarigaaga miinada lagugu xiray xaggee adi ka timid siduu dareenkaagu ahaa macnaha maalintaas maxaa kuu qorshaysnaa jadwalkaaga siduu ahaa macnaha waxaa ula jeedaa waxyaabaha aa ku fikiraysay markuu qaraxa kugu dhacayse sidee naqatay maxaa isbedelay wallaahi horta maalintaa oo qaraxa igu dhacayay waxaan kasoo toosay gurigeyga gaarigan wuxuu yaalay guriga meel ugu dhow oo markaa kaan soo toosay aan isku soo diyaaray shaqadii oo shaqo badan ii taalay aan ku fikiraya shaqadii markaas qabsado waxaan soo aaday dhankayga gaariga kadib gaarigii waxaan arkay oo aada boor u ah xoogaha baa gaarigiiaan boorkii maraayadihii ka jafay kadib waa dhex fadhiistay waa istaaray idaacad baan daartay markaas sidoo kulmiye ahaa oo wararka dhageysan jiray marka idaacaddii markaan daaray intee idaacaddii ay markaas ay maaragtay astaanta saarneed gaarigii xoogaan kursigii gadaal maaragtay u seexiyey xoogaan dhexra maaragtay kusoo nastay kadib kursigii waa soo sigiyey waa soo dhaqaaqay markaan soo dhaqaaqay xoogaha waxaan ku fikrayay in gaarig aan maalintaas labaajo iska saaro oon oolii ka bedelo waxba u sameeyo shaqadan aan iyu soo dhamaysto kadib marka hore waxaan dareemay maaragtay meesha ka yartay qarax oon islahaa meeshii ka dhacday laakiin aan mar u haynin oo isla aniga ahaa oo qarax anigii kadib marka xanuunkii iyo maaragtay dadkii kala cararaayo iyo markaan dareemay aan waxaan gartay in aan ka dhaawacnaa oo aad ii xanuuntay laakiin marka hore oo qaraxa u yeeray isla goobtaasaan moodayay in waxay ka dhaceen laakiin aniga isma lahayn mar qof ayaa waxaa maaragtay kuu diyaarinaya wax intaas la eg inkastoo haddii qofku wax iga tabanaya hadduu taleefon isoo diri lahaa ku dhihi lahaa xataa waxaasaan kaa tabanaya xataa shaqadu iyo wax walba markaas asiga iga tabanaya wuu u dayi lahaa xataa wadanka xataa iga tagad ugu dhihi lahaa wuu tagi lahaa saa nafteeda uu badbaadsado laakiin waxaa intaas uu isku soo dhawi maba ahayn nafta ilaa ahaayo marka alxamdulilah hadda waan ka noolaa alxamdulilah
gaariga xaguu ku qarxa ma cabiri kartaa macnaha ma isla xamarweyne gudaheeda mise marka shaqadaas soo aaday universal aana ku socotay soo maha markaas universal aan ku socday waddada mari jiraan maray marka mar ay marayso Shilem Super iyo sirta maartay Benquer gaariga markaas ayadoo socoto ay hal mar qarxi qabsaday marka waxaan isla qaraxa ma ahan dadka qaar waxay u maleeyaan in qaraxa ay gudaha ku jirtay laakiin gudaha kuma jirin waa in hoosa lagu soo dejiyay marka ayadoo bahasha ay ku xiran tahay aniga la soo baxay xaafadeeda kala soo tagay ilaa waa qof baa kor iga ilaashanay marka mar hore lagu xiray waayahay waxaan rabay inaan ku weydiiyo inta aad ku jirtay isbitaalka dhowr maalmood ama dhowr bilood maxaa ku fikri jirtay inaad warbaahinta ka hartid inaad dalka ka tagtid waxyaabaha aad dareemi jirtay mana la wadaagi kartaa wallaahi inta aan isbitaalka ku jiray horta markaan arko dadka markay imaadaan kulli waa dareemi kartaa adigoo maaragtay jiifa dadkii oo dhan wejigooda murug ka muuqato aadan arkaynin halkaa ka dhaawacan tahay marka ugu horeysa aan soo naaxay sawir waxaa la tusiyey social media lagu baahiyey oo aad niiday dishay aalada laftarkeegay oo aan isdhahay khalaas waa marka aad ugu niyajabay inaan warbaahin ku laabto iyo inaan muqdisho sii joogo waa waxay ahayd kaafii kala dheeri markaan sawirkaas arkay qof intaas maaragtay ila maagay kulley waa dareemi kartaa haddaan ad maaragtay ka badbaadid fursado lamaada lagugu raadinaya marka inkastoo muqdisho aan isku halay karin ammaanka waayahay cabdixamiid haddii aan ku weydiiyo su-aal jawaabteeda ay adag tahay yaa qaraxa uga shakisan tahay in uu kuugu xiray gaariga macnaha shakiyaan ka wadaa yaa ku xiray ma aha yaa qaraxa uga shakisan tahay inuu gaariga kuugu xiray yaa ka dambeeyaa isdhihi kartaa oo ah hadda tuhmaysaa ilaa qofka markuu dhib gaaro waa qasab inuu tuhun galo oo qof uu tuhmo qofkaasina ma ku raad joogtaa ilaa iyo haddeertaan mise waa cafise wallaahi aniga ma jirto horta qof aan tuhmaayo oon isleeyahay qofkaas wuu noqon karaa qof aan xilliga markaas dagaalsaneyn ama cadaawad naga dhexaysa ma jirto xilligaas waxaa iska xaafadeedii maaragtay yoon iska aadi jiray shaqada intaasaan u dhexi jiray xataa ma jecleen meelaha qaar in maaragtay aan aado marka ayadoon ka cabsi jiray aniga nafteeda taargetna lagu yahay uma cabsan jirin laakiin waxaan ka cabsanay dhibaatay meelaha wax ka dhacaan oo kale inay soo gaarto ama waxaas oo kale aan gobjoog u noqdo marka tuhun oo gaar ah aan qolo aan dhihi karo way ka dambeysay ma jirto qofkii waxaas geystay oo ii geystay iyo ama maskaxda ka dambeysay aniga kulley cafis ugu yahay kastoo maaragtay maanta aan ka noolahay alxamdulilah marka qofka aan maaragtay waxaas iigu sameeyey cafis u agteeda ka yahay hadduu nool yahay waa ka hadduu dhintayna asagana ilaaha u naxariisto marka hadduu maaragtay ila soo xariiro oo igu dhow waxaan aniga ku sameeyey ama waa ogaa hadda waxaan leeyahay cafisatay kartaa sabab maku weydiina haddii ugu samaysay laakiin qof walba caqli garaadkiisa waa qofka maalintaas inuu qaldamo waa laga yaabaa marka haddaan noolahay alxamdulilah haddaan geeriyo lahayn waa laga sabri lahaa soo maaha aada iyo aad cabdixamiid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka aa adiga muqdisho joogtay hadda marka aa fikirtid ma ahayd qof intaas dhib ah loo geysan karo tusaale ma waxaad ahayd qof dhib badan oo dadka xagxagta qof cadow badan qof dadka oo dhan ay isaga ku wajahan yihiin oo digtoonow badan ku jira ma ahayd qof noocay ahayd adiga wallaahi intay taqaano horta waa taqaanaa xataa adiga waa taqaanaa xataa aniga marka miska dhib badnayn oo qof dagaal badan ma ahayn
xataa dadka deegaanka xataa xilliga aniga xaafadda ku hooyanaya xilligaa kasoo baxay xataa maysan ka warhayn oo dad baa xaafadda markay isweydiiyeen oo isdhahan wiilkaasaa la qarxiy xataa dad ay aqoonsan waayeen oo dhaheen oo kee waay waayo qof markaas aada u fog badan oo dadka dhibaayo iyo ma aan ahayn xataa aniga marka qaar waxaan cabsan jiray xataa wariyaasha dadkii saaxiibadeyga ahaa oon maaragtay jiray halkaas ma u hooyanaysaa dhibaad qabtaa marka hadda ka hor xataa adiga inaan ku dhahay maaragtay 4 saacadood ay iga tegaysay xaafadeeda waan ku dhahay meeshaas oo hooyada rabtaa marka qof oo meelaha badan aan aadana ma ahaan jirin waa xaafadaas oo keliya shaqada ku ekaa waayahay cabdixamiid qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena maxay qisataal adduunka maraynaa waana kaaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan aa nooga ogolaatay inaad barnaamijkan uga qayb qaadato qisadaada daawadayaal idinkan waan idin mahad celinayaa aad baan idinkugu mahad celinayaa sida waqtigiina aad noogu horeysaan oo aad barnaamijkan ula socotaan cabdixamiid 100 qofood ee kaa hor imaataba celcelis ahaan imise qofooda cadowga ku laheedaas dhihi kartaa والله يعني قرط قف عدو ما ولا حين قف كان إسقبسنو أنا إسفهم وين وحوا وكل هالكاسم كل جابسن جرني قف مركز عن عدو تلمع مقاوم مجرو عن سلاهي قف يعني يقاون وحن لاهي إسكيعف وما سنتح ويه عبد الحميد ما كلها بندون تهدلك وليبا ما كشقين دون تاور باهين تمركله حقيقة حد كودن بيسا والله قصب ما هين دلك الوغلابتو هادن ورباهين لا شقي هاي حتى دلك كولابتو waxyaala kale in laga shaqeeyo inkastoo maaragtay marka hore baa aniga lagu kari waayin maaragtay dukaan aan gado oo midkaan hobigayga naqday oo xoogaha isdhaa halkaan maaragtay wax adag ku gaarad ka helaysaa markaasaa wixii dukaankii iyo wixii dhan mar walba albaabadan isku laabi jiray saa aniga teeda maaragtay u fiirsado marka hadda haddaan muqdisho ku laabto maaragtay hooshii kale aan markii hore qabsan jiro inaan iska qabsado oo waxaan kaamirada iyo waxaas dhan maaragtay iska daayo ilaan wax magaca keliya laga sameeya hanti lagama sameeyo xagee ku dambeysa waaya aniga hadda waxaan ku dambeeyaa qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka waaya ilaahay kugu amaansado waxaan rabaa su-aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo waxaa tahay qof mararka qaar wax curiya oo wax qora intaa ogaa aniga aan kaa aqaani adiga qarxii adi lagu geystay ma ka curisay wax tix yar oo qusaysa arrimahaas walaa horta qof wax curiya marka la dhafo aniga qof curiya oo wax iska awaan miihi laakiin wax markaas igu soo dhaco keliyaan qoraa waa jirtaa in maaragtay aan sameeyey mar aan Turkiga joogay oo xaaladii aan cidlo iyo oo walaalkayga uu wadanka ku laabtay kadib waxaa maaragtay aan sameeyey erayo ahayd aniga iska hadlaayo marka waxay ahayd inkastoo aan markaas u xiisay dadkeygii aan weligeena jeclaysan in qurbaha ku noolaado aanan jeclayn in waddankaan kasoo tago waayo mar walbo waxaan jeclaa joogid waalidkeygii oo aad aan jeclahay oo garab ii ahaa marka waa jirtaa erey markaas aan sameeyo ahayde waxaan ahay muwaadin maalin iyo liil dalkiis maanka ugu yaal miyaan ka maarmi karaa maskaxdayda maan gelin inaan ka musaafuro magansada shisheeyaha madluunnimo inaan ku noolaado intaas waxay ahayday inta
aniga oo maaragtay qiirageliyey. waayahay inta waa kale ku mahadsan jirtan waxay ahaydeen dhagarqabihii miinada iyo qoraxa iyo maleegii ma dhicin siduu ila rabay, wuxuu ila maaganayo mawlihii iga magalashaa mahadgaar iga mudan. marka taasaan ka sameeyey. maasha allah. waayahay cimri dheer iyo caafimaadaan ku rajeynayaa. waxaan rabaa fariin yar oo fursadda haddaan ku siiyo qofkii gaariga qaraxa kuugu xiray, haddii aan ku dhaho fariin uga dira halkan, waxay doontaba ha naqato, maxaa u diri lahayd? kulli qofkuu yahay ma aqaan aniga, laakiin qofkaas waxaan leeyahay wax walba aad samaynaysid sababa ha lahaadaan. qofka waxaad ku samaynaysidna waa inaad ugu digtaa. kulli aniga asiga qofka wax ku xiray asiga inaan qalad ka galay kulli ma aaminsanin in la soo diray. kulli qofka soo diray uu shaqeynayna asigana qaadimku u noqday waxa wanaagsan, sababtoo asiga qofkaan waxa galabsan uu sameynayo. marka qofkii markaa wax ku fikro inuu wax dilo, asigana dil baa u dambeeya. marka waxaan leeyahay haddaad imaqlaysid waxaas inaad iska dhaaftid kobaantoodid, ama ahaaw qof urur u shaqeeya ama qoladay eeday. marka qof gaar u aniga shaqeysa. arsiga qofkaas ya waayahay waa mahadsan tahay cabdixamiid maxamed cusmaan karazay. aad baan kuugu mahad celinayaa sidaa iiga ogolaatay inaad barnaamijkan igala qayb qaadato. waa markii ugu wareysay aan kaamara soo horfariisto. marka fahmay. shaqada adiguna waa mahadsan tahay. waa mahadsan tahay, aad baa umahadsan tahay. daawadayaal aad iyo aad baad umahadsan tihiin. intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maxay qiisataal adduunka, oo aan idinkugu soo gudbino qisooyinka dunida yaalla, kuwa jacaylka, kuwa murugada, kuwa farxada, kuwa dhibaatada, wax waliba sidaan oo kale. laba nooc waan u qabanaa barnaamijka. qisooyinkiin haddaad noo soo dirtaan oo aad noogu soo dirtaan ciwaanada shaashada idinkaga muuqda, waan idin akhrin doonaa. haddii aad xiiseynaysa inaad ka qayb gashan waa ila soo xiriiri kartaa oo waa ka qayb geli kartaa sidan iyo sidii hore aan u sameynay asxaab kaloo badanba. waa walaalkiin sharmaake abuukar amiin oo idinle tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo. asalaamu calaykum. qarnigaanan hadda joogno qaarad walba oo aad tagtaa khuraafaad baa dhex yaalla. qabyaalada maquursi, khiyaana ku hor taalla. maxay qisataa adduunka?